السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته كل وعانه ونكسن دعوة ذي المل المدنية دافئة كجوكتان يسيب بعد إنهم غليسان فلان دعوة هدي تامر كوادس بيات صوبوقتي وحن كعصنين أنا كوسو بيرتو كمين نقطة صاحب هذا كلا إسلام كان يقول بدن عليها برنامج كانوا وعن كوسو قادن دونا هدو قول إنه سامحوا مدحونا دلك الصومالية حسن شيخ محمود وإسلام كان مددي قدام بيلا إدرنا حنوك اللي يغنى كوفيد 19 ولو إيه جيران هذا لفرق بدن إسلام كان بين أورا balse waxaa halkan igula sugan saaxiibkay gooni oo isla markaana ila falanqeyn doona xaaladda madaxweynaha iyo isla markaana barnaamijka aad u qurux badan gooni kusoo dhawow waa mahadsantahay Axmed maanta horta waxaa hadlay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya wuxuuna sheegay in madaxweynaha uu nabad qabo bariyahan waxaa la isdhex maray dad fara badan arintii COVID-19 ku dhacay ayaa waxa sameeyeen dad fara badan oo baraha bulshada waxay ku sameeyeen in madaxweynaha aad u xanuunsan yahay qaarkood waxay dhahan waa dhintay qaarkood waxay dhahan xaaladiisu way culus tahay laakiin afhayeenka ayaa ka hadlay wuxuuna dhahay madaxweynaha caafimaadkiisa waa 100% waxba dhibaataan ma qabiyo muddo waato safar ugu maqnaay ee dalka Istaga Imaaraadka Carabta kulamana oo la soo qaatay madaxda wadankaasi ugu dambeyn safarkii toddobaadka ilaa dhowrka bari qaatay wato soo dhameystay ugu dambeyn magaalada Muqdisho markoo imaadana test ayaa lagu sameeyay madaxweynaha waxa laga helay cudurka COVID-19 kadibna wuxuu isku karantiilay xaruntiisa madaxtooyada muddo hadda 3 bari ayuu karantiil ku jira madaxweynaha uu caafimaad qaba 100% marka waxa leeyahay hadda madaxweynaha waxba dhib ma qabo afhayeenka oo hadlayna wuxuu leeyahay madaxweynaha bari tijaabo ayaa lagu celin doonaa oo inuu COVID-19 oo isha hadda uu saameyn ku hayo iyo inuu ka nabad qabo labadaba la ogaan doonaa maadaama shaqooyin fara badan ay taalo hortaalo madaxweynaha Soomaaliya xukuumaddiisana ay cusub tahay shaqooyinka magacaabista wasiirada iyo howlo kale oo fara badan in maadaama hor yeelaan madaxweynaha wuxuu leeyahay bari tijaabo ay ku laaban doonaa laakiin wuxuu leeyahay inta uu xanuunsanaa Axmed oo ninkan waxba dhib ma qabin caafimaadkiisa 100% ayuu ahaa marka aad iyo aad ayuu u fiican yahay ninka la yiraahdo Axmed cabditaxu haddii aan ka dhaxgalo waxaa jirtay in madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu safray dalka Imaaraadka laguna sheegay cudurka loo yaqaan COVID-19 inta badan waxaa jirta cudurka COVID-19 dadku uu haleelo inaysan safri karin isla markaana uu karantiin 14 days 14 bari u galo marka sidee ku dhacday in madaxweynaha isagoo isla markaana qabo cudurka COVID-19 uu soo safray isla markaana diyaarad uu dadka shacab la soo raaco horta Axmed waa maasantahay horta marka hore madaxweynaha uu tagay wadankaas Istaga Imaaraadka Carabta waa la baaray caasimada Abu Dhabi asaga iyo wafdiga la socday baaritaan guud lagu sameeyay madaxweynaha uu nabad qabay baaritaanka cudurka waa laga waayay markii cudurka laga waayay kuwi kale ayaa oo la socday laga helay karantiil ayaa ayaga la geliyay asagana muddo 2 maalmood meesha la geliyay xaaladiisa la sii xaqiijiyay waxba cudur muusan qabin marka madaxweynaha waxa la leeyahay safarkii oo soo galay dadkii oo la soo raacay ama ka qaaday cudurka sababtoo markii magaalada Muqdisho yimid baaritaan lagu sameeyay checking markii lagu sameeyay xumad ayaa lagu arkay xumadda markii lagu arkana cudurka COVID-19 ka laga baaray waana laga helay cudurka sababtoo waxa leeyahay rag la socday oo qaarkood xaq karantiil ku galay ayaa wali waxa leeyahay inuu ku jiro COVID-19 oo ay la soo safreen marka wuxuu dhax ka qaaday diyaaradda dhexdeeda wax ka qaaday iyo wafdiga asaga la socday cudurka qaaday leeyihiin saas ayuu madaxweynaha cudurkaas uu ku haleelay haddana xaaladiisa caafimaad meel fiican ay maraysaa Axmed inta badan waxaa jirta cabdifatax in la yiraahdo madaxweynaha waa la sameeyay war noocaas oo kale taasoo inta badan shacabka Soomaaliyeed ay ka falceliyeen in ka badan kumanaan qofood arinta ayada maxaa kala socota والله horta way jiraan dad fara badan oo youtuberada ah oo dadka youtube-ka aad uga shaqeystay iyo baraha bulshada waxay soo jeediyay waxay mar walba sheegaan in madaxweynaha uu dhintay mar kale waxay isleeyihiin maha salaad ayaa madaxweynaha sameeyay marka waxyaabo lagu qoslo oo la yaab leh ayaad arkaysaa marka maalmood waxaan arkay xataa maha salaad nin la yiraahdo geeska Afrika inuu soo dhigay maha salaad oo isku qarxiyay madaxweyne xasan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu isku qarxiyay maha salaad xaaladina laga sheekeynaa marka arrimahaas beenta ah dad ayaa daawanayo ugu yaraan 80 kun oo qof daawatay barnaamijka waa la yaabay mahad salaad wuxuu isku qarxiyay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka wararka suuqa la wareegayo iyo waxyaabaha beenta ah waxyaabaha baraha bulshada lagu kacsanayo waa xaraan waxyaabahaas la iska dhaafaan dhilaha laga lawaatoobo wanaagana hala fiiriyo dowladnimada Soomaaliya hala taageero dadka kale cabdifatax adigu mahadsan waa maxay sababta ka dambeysay in had iyo jeer la dhaleeceeyo mahad salaad sidii uu Fahad u sheegay in mahad salaad uu yahay qof isla markaana aan lagu aamini karin sirta dalka maalinta wixii ka dambeeyay mar walba waxaad arkaysaa maalinta ka dambeysay in la yiraahdo mahad salaad ba madaxweynaha san yeelay mise dowladda Soomaaliya wax kasta hoos dhaca in la yiraahdo mahad salaad ba ka dambeeyay maxay dhigi kartaa ahaanta fikradaada wallahi horta Axmed waa maasantahay mahad salaad horta waxa loo target gareynayo asaga wuxuu ahaa horta markiis hore shakhsi dadka taago oo weerar ku qaado dadka ay ka soo
aragtida duwan madaxweynihii hore dowladda farmaajo iyo xasan cali kheyre aad u weerari jiray markii maxamed xuseen roble la doortay ayuu xoogaa maxamed xuseen roble ka qafiifiyey weerarka oo kheyre ku hen jirana waata oo yareeyey markii maxamed xuseen roblena meesha oo soo galayna xaalad wuu qawoojiyey ugu dambeyn madaxweynaha ay targetkiisu ahaa soo madaxweynaha u weerari jirana waa ku dhamaystay marka mahad salaad haddii maanta la weeraro ama la ataago ama wax laga sheego ama run iyo been waxay noqotaba lalama yaaba sababtoo asaa dadka weerari jiray wixii dadka uu ku hen jira lagu haaya marka axmed taas la yaab ma laha mahadsanid cali fataax qodobkan ugu dambeeyo madaxweynaha dalka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xil ka qaaday wasiiro waa maasan tahay horta xilal ayuu ka qaaday wasiiro fara badan wuxuuna warqadiis ku soo qoray ku Cumar Cali Cabdulaahi wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta ku Maxamed Xaaji Cusmaan Jaamac wasaaradda horumarinta iyo beeraha iyo ku Cabdiraxmaan Cali Cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ku Axmed Xasan Nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta ku Saleebaan Cawad Cali Buqaari gudoomiyaha hay-adda caymiska ku Sahra Aadan Yuusuf gudoomiye ku-xigeenka hay-adda caymiska ku Cabdi Waasac Maxamed Yuusuf gudoomiye ku-xigeenka hay-adda dhowrista tayada ku Axmed Abubakar Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo marwo iyo intaas wuxuu leeyahay waa xilalka ayaa laga qaaday sida aad ula socotaan xilku waa meerto muddo fara badan ayaana xilkan soo hayseen marka waa ku mahadsantihiin shaqadii ay la shaqeyseen marka intaas oo dhan xilka ayuu ka qaaday ugu dambeyn wuxuu magacaabay haddana ujeedo magacaabid ayuu dhahay marwo wuxuu magacaabay haddana markaan arkay dastuurka Somaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoonta iyo kartida iyo waayo aragnimadooda waxaan haddana aan ku qancay in ay hanan karaan muuqaalka iyo mas'uuliyadda iyo dhalinyarada marka wuxuu leeyahay waxaan magacaabay ilaa iyo dad lagu bedelay kow Axmed Aadan Axmed Buuxine wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta 2 Cabdiqaadir Iimaan Warsame wasiirka wasaaradda horumarinta iyo beeraha 3 Maxamed Warsame Jaamac wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dhulka iyo guryeynta 4 Maxamed Jaamac Warfaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga 5 Yuusuf Abiib Cabdi Cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha 6 Cabdul Majiid Ibraahim Muumin wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska 7 Mukhtaar Maxamed Cali gudoomiyaha hay-adda dhowrista tayada iyo caymiska 8 Guuleed Muuse Galaal gudoomiyaha hay-adda caymiska 9 Xamse Cabdi Ibraahim gudoomiye ku-xigeenka hay-adda dhowrista iyo tayada 10 Maxamed Xuseen Axmed gudoomiye ku-xigeenka hay-adda caymiska 11 Muuse Cabdi wuxuu leeyahay Muuse Jaamac Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka 12 Fawzi Maxamed Faarax agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta 13 Qadar Ibraahim Maxamed agaasimaha sanduuqa iyo horumarinta dhalinyarada intaasoo qofood ayuu magacaabay ninka la yiraahdo Axmedow marka dadka isku shaandheyn ayuu sameeyay inkastoo xukuumaddiisa leeyahay waxa ka hartay muddo 3 bilood ah haddii aan ka dhaxgalo Cabdifitaaxu in ka badan dhowr sano ee waxaad falaqeynaysay siyaasadda dalka Soomaaliya inta badan waxaa la yiraahdaa dowladda Muuse Biixi mise xukuumadda Muuse Biixi aan dhahay waa gowaabsi oo isla markaana waqtigeeda waa dhamaaday marka adiga ahaantaada Cabdifitaax fikirkaada waa sidee u dhacday in maadaama xukuumadda ay dhamaatay oo waqtigeeda u dhamaaday in intana wasiir ah xilka laga qaado والله horta waa la yaab xukuumadda oo dhacayso muddo 3 bilood ay ka hartay in wasiiro loo magacaabo kuwa kalena xilka laga qaaday waa la yaab marka Muuse Biixi Cabdi Danta oo kaliya lama garanayo laakiin dadka qaarkood mucaaradku waxay leeyihiin Muuse Biixi wuxuu rabaa inuu waqti ku darsado maadaama hadda 3 bilood ay ka hartay wuxuu dhihi rabaa in waqtiga ma suuragalayso 6 bil iyo 8 bil waxay noqotaba hal igu daro marka isjiidkaas iyo cabsidaas ayaa jirto sababta oo hadda u magacaabeen waxay la tahay danaha waqti kororsiga la inay kamid tahay Axmed Cabdifitaax aad baad u mahadsantahay daawadayaal sida isla markaana quruxda badan iyo had jeer aad nagu xirantiin inoona daawataan oo aan idin mahadcelinaa fadlan haday tahay markii koowaad ee isla markaana channelka TV aad soo booqataan waxaan si naxariis laga codsan inaad ku soo biirtaan oo kamid noqotaan saaxiibada kale quruxda badan isla markaana leenahay tan intaan barnaamijkiisa kala kulmin xitaa iyo amaan Allah